bismillahi rahmaani rahiim. Waa cashirkeennii labaad. Hordhici waynu ka soo hadalnay ama qaybtii yareeda bilowga waynu ka soo hadalnay koroska sida shahaadada loo helayay iyo waxaynu ka soo hadalnay korosku outlinekiisa ama korosku waxyaabahan ku baran doono. Hadda waxaan ka bilaabaynaa cashirkeennan ku xiga introduction to satellite ama introduction to satellite communication. Wuxuu yahay introductionka satellite communication. Waxaynu marka hore isweydiinaynaa muxuu yahay satellite. aynu satellite uga jawaabno wuxuu yahay satellite-ku ayaa waxaan leenahay satellite-ku sidiisaba waxa weeyaan waa device bini aadam sameeyey oo cirka loo diray. Waxaa sidoo kale sometimes la yidhaahdaa inuu satellite-ku yahay waxa weeyaan artificial satellite. waayo wax kastoo airspace-ka jooga ama space-ka jooga waxaa loo yaqaana satellite. Satellite-kii waa laba kala noqonaya wax man-made ah iyo wax natural ah. waxyaabaha man-made-ka ah artificial satellitesku wuxuu noqonayaa waxa qofka bini'aadanka sameeyey waa satellite-yadan cirka loo diro inuu sanad walba maqalno waddankaasa ayaa satellite diray ama waddankaasa intaasoo satellite diray ama satellite buu waddan hebel diray. africa oo kale ethiopian maqlaynay sanadkii hore inay iyaduna satellite diratay. china maqla intaasoo jeer inuu satellite dirtay. so many satellites baa hawada loo diraya. marka satellite-ku sidiisaba waxa loo ka hadlaynaa inagu artificial satellite. natural satellites waxa loo yaqaanaa meerayaasha kala duwan. waxa loo yaqaanaa moonka, dayaxa, qorraxda, waxaas oo dhan waxa la yidhahdaa waa natural satellite. this is artificial satellite. Satellite-ka marka ka tagno qaybahan dhulka yaalla ee communication-ka la samaynaya satellite-ka sare waxaynu isagana bixin doonaa ES Earth stations ama VSATs hadba sida inoo sheego noqonaya. marka waa casharka ugu xiisaha badan buu noqon doonaa haddii ilaha idhaahdo koroskani aynu ku baran doono wuxuu yahay satellite. aan ka bilaabo markaasi definition. marka wax kastaaba waxay ku bilaabmaan su'aal si qofka attentionkiisu soo jeedo. adigu maxaad ka taqaanaa satellite? waa maxay satellite? siday kula tahay u sheeg. okay, satellite laba definition oo kala duwan labadaba waa lagu bixin karaa. satellite inaynu nidhaahno satellite communication is transporting information from one place to another. waa in xog laga aabulo, waa in xog laga qaado meel oo meel kale la geeyo iyadoo oo la isticmaalayo communication satellite. isgaarsiin xagga satellite-ka xagga dayax gacmeedka. waayo artificial satellite waa dayax gacmeed, waa dayax gacanta lagu sameeyey. that is why dayax gacmeed aanu leenahay maaha natural satellite. marka kaasi oo in ku jira, waayo waxaan sidaa ugu micnaynayaa dadka background-kooda kala duwan. kaasi oo satellite communication-kaas ku jira orbit around the earth, orbit adduunka ku wareegaya ama dhulka ku wareegaya. marka waa xog laga qaadaya meel ilaa meel kale iyadoo la isticmaalayo satellite. another definition waxaynu odhan karnaa if the communication takes place between two earth station. haddii communicationku ka dhexeeya laba earth station sida earth station 1 iyo earth station 2 oo kale. communicationka ka dhexeeya ee labadooda ka dhexeeya iyadoo la isticmaalayo satellite. waayo labadan earth station isma soo gaari karaan ilaa iyo satellite-ka footprint maxaa la yidhaahdaa footprint sida caadiga ah waxaa loo yaqaanaa satellite-ka bartan inoo yaala. aan ka soo qaadno matalan ee ah satellite-ka tusaale ahaan cirka ka sarreeya range aad u fara badan. waxaan bari loo sheegi doonaa ilaa 630,000 oo kilomitir in dhulka ka sarreeyo ayaa anteenada bartan taala iyo anteenada bartan taala laga yaabo inay kanu yahay Africa kanina uu yahay sidoo kale tusaale ahaan Europe ayaa waxay communication samaynayaan labada dhexdooda ayuu communication ka dhexdhacaya. labadan dhexdooda communication ka dhexdhacaya ayaa waxaan odhanaynaa markaas waa satellite communication. waxaa laga yaabaa labadoodan masaafo ahaan inay isku jiraan 220,000 oo kilomitir for instant ama intaasoo 100 oo kilomitir inay isku jiraan. marka waxaan leenahay communicationku haddii uu communicationku ka dhexeeyo laba aerostation oo aad u kala fog
iyadoo satellite-ka la marayo ayaa waxaynu odhanaynaa waxa loo yaqaanaa satellite communication. hadda waxaan filaya inaan su-aashii ka jawaabnay muxuu yahay satellite communication. satellite communication laba definition baan ku bixin karna inaan idhaahno waa xog laga qaadayo meel ilaa iyo meel kale iyadoo la isticmaalayo satellite, iyo inaan idhaahno communication kastoo ka dhexeeya laba goobood oo dhulka ah iyadoo la isticmaalayo satellite ayaynu bixinaynaa satellite communication. okay, taan ka imaado waxaan u imanaynaa markaa slide-ka ka inoogu xiga need for satellite communication. satellite communication maxaynu uga baahannahay? su-aashu waa su-aal very broad. su-aashan waa su-aal aada u ballaaran. satellite communication maxaa looga baahan yahay? iga ra'yi ahaan maxaynu uga baahannahay inuu satellite communication dhaco? waxyaabo fara badan baynu uga baahannahay. waxaynu uga baahannahay in informationka la isku gaadhsiiyo laba goobood oo aada u kala duwan. labadaa goobood oo aadka u kala duwan yihi waxaa laga yaabaa inay halkani tahay point a for instant aan idhaahdo tusaale ahaan halkan waxa weeyaan waa point a, halkanina waa point b. point a iyo point b waxay isku jiraan masaafo aada u fog oo dhulka. kani waxa weeyaan halkan waxaa inoo taalla anteno, anteenada kale halkaa inoo taallana halkan oo kale inoo taalla, waayo without antena laba transmission ma dhici karo. tusaale ahaan noocyada kala duwan ee maxaa loo yaqaanaa informationka la iskugu gudbiyo ama loo yaqaano wave propagationka way fara badan yihiin. wave propagationka way fara badan yihiin. waxaa ka mid ah in la isticmaalo kow mid loo yaqaano line of sight, in labadoodan dhexdooda line of sight laga dhexaysiiyo, waxaana loo yaqaanaa loss line of sight. communicationkaasi inuu noqdo mid line of sight misaragna ku shaqeeya. sida for example markaad laba microwave oo kala duwan, microwave waxaa la yidhahdaa hawradeena dhiishishka ku yaala, kuwaasi waa laba dhiisho saasoo kale iskugu beegan. kani wuxuu noqdaa r egas, tusaalahankana t egas noqonaya. labadood midna oo transmitter midna oo receiver. sidoo kale hadda waxaa laysku yidhahdaa waa t r egas labadooduba, waana transmission waana reception waa transceiver ayaa leenahay markaas. marka labadoodan lineka u dhaxaynaya loo yaqaanaa line of sight. line of sight communicationkaasi waa dhaca. laba information ama wave propagation waxa kaloo u dhici karaa oo xog laga qaadi karaa goob oo goob kale la geyn karaa. wuxuu noqon karaa inaynu isticmaalno wax loo yaqaano ground wave propagation. ground wave propagation ayaa loo yaqaana. ground wave propagationku isaguna waxa weeyaan in communicationkaagii uu dhex maro sida ka muuqata dhulka dushiisa inuu maro. dhulku waa carof, saasoo kale inuu dul maro buuraha iyo waxyaabahaas inay reflection ku sameeyaan oo ay sii wiciwiciyaan. isagana waxaa loo yaqaanaa ground wave propagation. kan saddexaad ee iyadana generalka la isticmaalaa waxa weeyaan maadaama oo dhulku careful yahay waxaa la yidhahdaa waxay naga sarreeyeen gibil aada u culus, gibil aada u weyn loo yaqaano waxay naga sarreeya oo loo yaqaano ionosphere. waxaa loo yaqaanaa ionosphere layer. ionosphere layerku waxa weeyaan waa gibilka sare ee naga sarreeya. gibilkaasi markaasi waxa dhaca wuxuu ka qayb qaatay sida communicationka. waxaa la yidhahdaa isagana wavesku inta ku dhacaan ee dib u soo reflect gareeyaana dhulka dib ugu soo laabta. ama sidoo kale wavekaasi noqonaya intuu ku dhaco ay dhulka ku dhacaya haddana uu ka noqonayaa atmosphere kusoo noqonayaa mar labaad buu saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad buu ku noqonayaa. finally wuxuu gaadhayaa receiverkii ayuu gaadhayaa. marka hadduu yahay kani tiegaskii kaasina uu arigaskii yahay up and down kaas ayuu ku shaqeynaya. intaa ka dhaxaysana communicationku ka dhex dhacaya. sidaa aawadeed saddexdaasi markaa aynu kolkaynu isku geyno kana waa ka saddexaad aynu isagana u bixinayno. kan isagana waxaan u bixinaynaa sky wave propagation. sky wave propagation baa loo yaqaana. kuwa marka la barbar dhigo markaynu u eegno satellite communicationka waxay leenahay markaasi waxaynu uga baahannahay inuu satellite waxaynu uga baahannahay kuwa aynu soo sheegnay oo dhani dhulka aanay ka fargarayn karin ayuu kani ka fargaraya. dhul intee leeg buu markaa ka fargaraynaya aan isweydiino. ground wave propagationkani distanceska ugu badan uu gaadhaa waxaa la yidhaahdaa waa 1500 oo kilomitir. 1500 oo kilomitir ayuu gaadhaa. laakiin markaynu satellite nidhaahno waxa weeyaan dhammaan adduunka oo dhan. marka waxaan filayaa for satellite communication markaan ka sheekeynayna
can cover wuxuu cover garayn karaa wuxuu gaari karaa wuxuu footprintkiisu gaari karaa long distance while ground communication cannot kaasi oo ground communication maxaa la yidhahdaa kan dhulka la dhigayo ama ha ku gudbo ground wave dhulka ha maro ama line of sight ha maro dhexda ha maro ama xagga saraha kasoo noqda atmosphere-ka ah ayaa iyagana loo yaqaanaa kuwaasoo dhammaantood ayaa loo yaqaanaa ground wave propagation ground wave propagation-kaasu markaasi ayuu ka faa'iido badnaanaya wuxuu kaga faa'iido badnaanaya because of wuxuu leeyahay cover dhulka oo dhan wada gaadhaya kaasi ayaa loo yaqaanaa markaasi satellite communication waxaynu uga baahannahay